ugu dambeyn لاعب كريستيانو رونالدو oo qirtay inuu ku guuleystay Ballon d'Or qalad ah su'aal la weydiiyay jawaabteedii ayaa waxay noqotay Ronaldo inuu ku guuleystay Ballon d'Or qalad ah 2013kii لاعب Ribery wuxuu u qalmay Ballon d'Or-ka kaas ku guuleystay Champions League iyo sidoo kale koobabkii Jarmalka laacibkan marka wuxuu soo qaatay wareysigii su'aal ay weydiiyay Ronaldo wuxuu yiri marka waxa loo baahan yahay miya in lagu guuleysto Champions League سؤالشاس رونالدو ay ku soo laabatay maadaama 2013 uu ku guuleystay Champions League sidoo kalena koob badan oo soo qaadin wuxuu ku qaaday kaliya goolal badan ay u dhaliyay sanadkaas sidaas ayaa lagu siiyay marka Ronaldo ma leeyahay karaa waayihiisa wuxuu qaaday Ballon d'Or oo sanu qalmin sida Messi oo kale asagana su'aalo badan in la weydiiyay ay tahay maadaama Ballon d'Or yaal badan ay ku maqan yihiin oo laacibiin kale ay u qalmeen sanad kan ayaa u qalma Ballon d'Or inuu ku guuleysto Lamine Dembele iyo sidoo kale laacibka Rafinha ayaa la leeyahay ayaa top 3 ah marka ayaa leedahay uu ku guuleysan karaa aniga ahaantayda waa iska cadahay Dembele ayaan dhihi lahaa adigana